السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوان وحا إسسو ديبي أو قعنت دولة صوغالي هجاميه كوحدة حزب الإسلام حسن ظاهر أويس هذا وحا سويدين بدن أو هذا الهين بدن أو مالمهن سعودية إن حسن ظاهر أويس صابته وسكسو ديبي محيطة وحا إلا فدي هذا نين يراء أو كمد إن dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadanka Ingiriiska kana mid ah hogaamiye u taliya urur kamid ah urur halkan ka dhisan waxa uu leeyahay annaga ayaa casunnay annaga ayaa ugu baaqnay Xasan Daahir Aweys inuu yimaado dalka Soomaaliya sidoo kalena waxaan casunnay uu yiri ururada kale kooxaha kale ee jira ee kooxda al-shabaab ka tirsan sida Rabo Masuur iyo rag kale oo magacaabi doono waxa jecel inaan waraysi gaar la yeelano magaciisa ku soo dhaw magacaaga ku bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan marka ugu horeysa halkan hambaliyo iyo bogaadin u marinayaa dhamaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed meel iyo ay joogaanba waxaan salaantan salaan la mid u dirayaa gudoomiyihii hore ee xisbiga islaam ay ahaana xubin ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin oo caawa ku sugan magaalada Muqdisho waxaan sidoo kale hambaliyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan qaybaha ay bulshada doonayaan inay ka qayb qaataan hanaanka nabadeed iyo dib u heshiisiineed ee uu Xasan Daahir Aweys ka qayb qaadan doono hadii Allah awood leh uu raali ka noqdo waxaan jecelnahay inaan dawladda federaalka meel gaarka ah qaybaha bulshada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ogeysiino Xasan baa la qabtay arinku ma ahayn Xasan wuxuu ku socday wadiiqo nabadeed waxa uu ka qayb gali lahaa shir caalami ah oo dib u heshiisiineed waxaan ognahay ummadda Soomaaliyeed inay u baahan tahay nabad iyo dib u heshiisiin waxaan ognahay in dawladdu ay ku baaqday in la wada heshiiyo in dagaalka dalkeena uu ka socdo uu dhamaado sidaas daraadeed xiriiro fara badan iyo dadaalo la sameeyay waxa suuragal noqotay in Xasan lagu qanciyo inuu ka qayb galo shir ka dhici lahaa dalkaas Gadar magaalada Dooxa waxa sidoo kale shirkaas ka qayb qaadan lahaa qaybo kala duwan oo ururada ka tirsan siyaasadeed iyo ururada bulshada iyo aqoon-yahano Soomaaliyeed oo daneynayay in dalku iyo dadka Soomaaliyeed ay helaan nabad arrimahaas aan dusha ku soo xusnay ma ahayn arrimo maalin iyo laba iska yimi inkastoo ay daahday in laga hadlo shirar iyo isku dayo iyo dadaalo fara badan dartood ay u daahday haddana waxa xoog la saaray lagu dadaalay in arintaas sidii ay u socotay isla markaasna ay dawladaha Gadar iyo dawlado kale oo arimahan involved ku ah ay ka hadlayaan ama ka hadli doonaan aadna waxaan u hambalyeynaa oo u soo dhaweynaa odayaashii ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa waxaan murugo iyo xumaan u aragnay runtii in xabsiga la geeyo oo aan ahayn wax ballankii ummaddu ay ku ballantay aan ahayn isla markaasna aanay u adeegaynin in nabadgelyo la helo waxaan jeclahay inaan ku sii weydiiyo waxa tiri Xasan Daahir annaga casunnay idinka oo ayaa cusub Xasan Daahir xageesa ku cusubteen markii aad cusubteen ma qorshe idinka aad dejiseen baa qorshii ku yimid ilaa cadaado oo hadan ilaa Muqdisho ku yimid mase wuxuu ahaa qorshe nafla caarinimo ah oo ku soo baxsaday oo uu kaga soo baxsaday kooxda al-shabaab asmaada officialka ah ee Xasan uu ku yimid waxa lahaa golaha midnimada Soomaaliyeed oo gudoomiye ku xigeenkeedu uu isaguna joogo oo waraysiga ka bixin doono waxa lahaa tala soo jeedinteeda dhamaan shakhsiyaad iyo ururo odayaal nabadoono bulshada qaybaheeda kala duwan oo daneynayay inay arintaas ay ka qayb qaataan anigu ugu yaraan 7 goor baan waxaan ka hadlay idaacada Al-Furqaan ee magaalada Marka ku taala muddo laga joogo 3 toddobaad ayay ahayd markii ugu dambeysay oo aan hadal aan toos ahayn oo nabadda iyo dib u heshiisiinta ku saabsan inaan ka bixiyay waan jeclahay idinna siin doono waraysyadii aan halkaas ku siiyay talooyinkii aan ku siiyay iyadoo waliba idaacadaas doodeedu uu ka qayb qaatay ninka markaas u taliya ama ugu sareeya xarakada shabaab ee mujaahidiin al-shabaab ninka la yiraahdo Abu Zubayr oo dooda ku jiray waxaan qabaa marka qof walba oo Soomaaliyeed hadii uu nabad doonayo ka qayb qaadan karo nabadda waxaan ugu baaqayaa inuu nabadda ka qayb ama Zubayr ha ahaado ama shakhsi kale ha ahaado waxaan ognahay oo na soo maray kooxo sidaas oo kaleeto ka soo horjeeday dawladihii xilliga meesha ka jiray oo uu kamid ahaa Shariif Sheekh Axmed oo kuwa maanta jooga ama warloro maaragtay dalka wixii ka dhacay ka qayb qaatay dalku nabad buu u baahan yahay cid walba oo Soomaaliyeed ka qayb qaadan kartana waxaan leeyahay inay ka qayb qaadato diyaarna waxaan u nahay dawladdan runtii way soo dhaweysay iyada ku baaqday hadalkii madaxweynuhu ku baaqay oo aan anagu London ku aragnay aan madaxweynaha London kula hadalnay dokumentiyo cad oo nabadda ka turjumayna aanu gacanta ka saarnay ayay waxaan daba socdaan ma wax iska
ولي سيفي عن محمد هذا إن مقدم يجتيره حسن ظاهر إذا كعسمي إذا كأو قالها من لماذا الصومالية أو كريسان ودن كان إنجليز كأو طبعا صوماليا يعني فلفتكوا طبعا أور أبارتها قدومي طبعا قدومي كحين كذا ورئيسان دونا متشرين سياسيين كله أو كم بدأ كوح هذا ما يلقى على الشباب سيدا ربو مصور أو كله وعسنتين هدي عسنتين لما يدك أقبله محاسة لقى لي كرا هذا أسق نورتا أرنتن حسن وحجار وعسمي هاوشي سلة سعودي قلها من نمط الصومالية وقدومي كحين كذا وكهل للدونا أنا كشخصيا كالنتي جا أدنيت وحياة كالنت نودي دبوشيسين تا أو أنكلها هذلي ستوسة يسدد بمبا hadeerna aan u taaganahay inaan sidoo kale uga qayb qaadano ma doonayo inaan ka hordhaco isla markaasna aan riski wax gelin kara shakhsiyaad iyo magacaabo laakiin waxaanu garaacaynaa irida ugu dambaysa ee qof walba oo nabadda ka qayb qaadan karta kana qayb qaadan doonta waxaan jecelahay inaan ummadda Soomaaliyeed ugu hambaliyeeyo fursad baa jirta maanta in laga faa'iideysto fursadda jirta oo ah dad fara badan wax ku ool ah dhul fara badan oo Soomaaliya ka tirsan ka taliya doonaya inay nabadda ka qayb qaataan laakiin wata condition ah wadanka inay muhiim tahay in sharciiyad lagu dhaqo waan wax laga hadli karo sida hadda muuqata maxkamadaha ee dawladda mar walba oo xukun dhacayo waxa la soo qaataa qodobka 400 iyo hebelaad waxa sidoo kale la barbar dhigaa waxa Ilaahay iyo aayadkiisu ay ka qabaan oo macnaheedu yahay in almost maxkamadaha ay qaybo kamid ah dabaqayaan dastuurkii maaragtay rabbaaniga ah ee kitaabkii sharciyada islaamka marka wixii la isku diidanaa way soo yar dhawaanayaan in ciidan qaran la helo Soomaaliyeed yes ana aaminsan أنا ديدن إن شيشية كينيا يوغندا بروندي إثيوبيا إن ودن كي كسكنادان وين ويل سوماليات وأود له وشرف له عيدا كي قلب كسيدة إن لبسه وأنا واحد دولة سوماليات دانو جرت ومد سوماليات دانو جرت مركو حنسود وينينا وحنسود وينيا يريدوا البنديار وهنا نقرأ أنا وأنحل منصب كدونين sidoo doono qofku ahaado ama alqaacida ka tirsanaa meel kale midna waxa jecelahay inaan halka umad Soomaaliyeed uga sheego adduunka Mareykanku wuxuu baryayaa Taliban oo laf dhabar u ah alqaacida waxir Taliban oo alqaacida laf dhabar u ah ayaa dooxa xafiis looga furayaa si loo nabadeeyo wiilasha yaryar ee Soomaaliyeed hebel aan u naqaanan waxa leeyahay lama hadli karo waanu la hadlaynaa hal inaan su'aashida ugu dambaysa ku weydiiyo oo ah xasan daahir markii la soo qabtay dawladdu isla markiiba waxa la keenay magaalada Muqdisho waa la xira oo waxa ka warqabnaa ciidamo nabad sugid iyo wax la mid ah la wareegeen oo waliba waxa xanta hoose ay sheegaysaa in nabad sugid shisheeye ay ku jirto ciidamo shisheeye sirdoon Mareykanka iyo Ingiriiska ay ku lug leeyihiin ma laga fili karaa in ay hor istaagi karto wada hadaladii la gali lahaa kooxaha kale سؤال كلنا بحيث هاي أنا وقت قد يقابي هروينا كوسو قبي أحمد قدني أسجع هجاميها كوحدة على الشاب ما يسكت ضيديننا أسجع وهذا القريب كجلسان. أشهد ارتاد بأنا أقول فرح صناعي رنتي وأنا سؤال قيمة بدن وحبيا وفربنا أديس وحسوسي وحنجعل هاي حسن صوبت الله حرا إني تهاي وحبو فشل لها الشباب وحنو قلنا هاي قيمة فربنا وكم إذا إني ليهين هي أداها الشيء CIA MI5 MI6 FBI وور حقيقة وجرة وحنا جرة فاكت نبه والله هيو ودن كان وحقسك كسعة وقسك كوضع نيواش الشيء مال قلينية رصاصته يكون دجال ميان دبعتها دعيسة بيرهنا كما بحان رصاصته إنترنت كيفسيلتيز كأنت أسلعنا معها مارك إيجا وحلقوا حبرتي دولة وحلقوا حبرتي وحتى سؤال نوقف فلان وقال مقدسة وحكى دعي فؤاد شنقولوا مساجد كجرا أيها اللي يسقط قرحي مساجد ده وحل جود اللي يضد يوكل الدون شيخ عبد القادر قعمي بقى جود بيه تذكر فرح بدنا مساجد اللي جود اللي وحنا جود باقي إن تذكر الله هيو أو اللي بدولة بنتلان ما مقابلات كبنتلان أو هيو إن اللي جود دقين إن اللي دلو الرمتها صبارتان فوق وبانته تاس وقلب أنا سؤال هذا كسر نقطة يس أحمد عبد الجودنا أنا أقول باقي إنه كقرب قاته هنان كنا بدأت يدبيه شيء سينته inkastoo aanay u dhicin qaab telefoon haddana waa wax recorded ah oo aad idinku laftigiinu ka heli kartaan radio Al-Furqan ana siiyay 3 weeks baa laga joogaa waan ugu baaqay inuu ka qayb qaato waan 10 goor horaan kala hadlay haddaan kala hadlayaa waan kala hadli doonaa haddii aan helayo fursadeeda isna waxaan ka codsanayaa dagaal muddo dheer socda wadankeena dan uma aha wiil Soomaaliyeed inuu ku dhinto mooyee wiil Soomaaliyeed ku dhalan maayo waxaan ku leeyahay Axmed Cabdi Godane walaalow ummadda Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed inay ka fikirto malaayiinta naloo badan lan qaaday ee la yiri hal lagu dilo ama hal soo xiro xal noo ma aha inaga nabad wax yar xal inoo ma aha qof Soomaaliyeed in
afgaan iyo daalibaan la baryo oo la yiraahdo xafiisyaal leedin furay heshiis ka qayb qaata wiilasheenana la yiraahdo waa la dilayaa ee heshiis kama qayb qaadanayaan annaga waxay noo tahay wajgabax xasan daahir waa la xirayay iyo waa la qabtay la leeyahay waa humiliation la doonayo in lagu qariyo xasan wixii uu fashili lahaa waxaan aaminsanahay laga faa'iideysto hanaanka iyo himilada nabadeed ee xasan daahir uu horseedi doono waa nin khibrad u leh shabaab dhexdeeda waa nin khibrad u leh dawladda dhexdeeda waa nin waxyaabo fara badan oo wadankeena lagu gacan bidxeeyay ee dawladaha shisheeye ay wadaan ay ku gacan bidxeeyaan aniga kula hadlaya 100 goor in ka badan baa la qabsaday oo dawladan Ingiriiska iyo dawlado kale ay qabsadeen ee la igu dayay ama ay weydiiyeen inaan shaqaale u noqdo oo aan jaajuus u noqdo oo ay ballan qaadeen in lacag la isiinayo sidan la isiinayo oo VOA-da iyo meelaha aad ka helaysaan waraysiyo aan ka bixiyay wadankeena waxa qaska ka wada waa dawladda shisheeye waxaan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed iyada iska saari karta inay heshiiso si shisheeyaha uga dhaxbaan waxaan jeclahay inaan su'aal ku weydiiyo waxa dhahday waxaan la xiriiray Axmed Godane ma kontaktiga Axmed Godanaad haysaa su'aasha kale aan ku weydiinay waxay tahay xagee ayuu ku sugan yahay waa nin noocee xasan Axmed Godane asaga wal raadinay mid kale waxay tahay waxa ka dhawaad waxa tiri internet bay isticmaalaan iyo kooxda shabaab yaa siiyo internetkaas xagee bay fasiilaadka inta la ka helaan xataa Muqdisho aan bal laga helin horta waa la xiriiray oo xiriirkiisan hayaa maaha niman aqaano oo aan weligii arkeen horta maaha laakiin waxa jira idaacado ay dhageystaan oo Radio Furqaan ugu horeeyo Radio Furqaan wuxuu wareystaa dawladda federaalka wuxuu wareystaa aqoon-yahanada Soomaaliyeed doodu inta badan lagu caasimaayo aan inta badan ka qayb galnaa dalxa ka qayb qaata oo doodo badan ay nagu dhex mareen raadiyahaas Axmed Godane wareysi aan siiyay wareysi ku xigay bay ajaad la soo duubay ka qabteen halkaasaan uga baaqay oo ay ka dhageysay isla markaasna toddobaadadii hore wixii aan ka hadlay qaybtood uu kaga hadlayay toos uga ma aanu jawaabin nin cid u jawaabana ma aha oo nin hadaladiisu ay maaragtay qofku su'aasha labaad oo aan u gudbaya waxay tahay waxaad arkaysaa shakhsiyaad ajaanib ah oo haysta satellite iyo internet fast ah ninka Soomaaliya jooga caasimadeena jooga YouTube in wax soo galiyo way ku adagtahay hadaanu Viasat haysan waxaad arkaysaa shakhsiyaad ajnabi ah oo al-shabaab sheeganaya inay internetka soo gelinayaan video fast ah way caddahay waxaa siiya oo aan ku eedeynayaa waa shisheeye waana waxa aan leeyahay ama CIA ha noqoto ama ha noqoto MI6 ha noqoto ama MI5 ha noqoto laakiin waxa cad involvementiga ay ku yihiin dawladda Ingiriiska iyo dawladda Mareykanka waxa cadeyn u ah oo cadeyn aan kale aan u baahnayn ninka awoodda intaas la haysta ee video YouTube wax soo gelin karaa nin Soomaaliyeed oo Muqdisho caasimadeena jooga ayaan haysanin marka waxaan leeyahay aan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo oo aan mar walba ku soo gabagabeeyo sidii aan wareysigii ugu dambeeyay Universal TV aan ka siinay in Soomaali isku noqoto aad u mahadsan yahay waxaad ay la soo fariistay gudoomiye ku-xigeenka ururka midnimada Soomaaliyeed oo ka dhisan wadanka UK oo dabcan isagu kamid ah dadka magacaabay in ay xasan daahir casmeen oo aan jeclahay inaan su'aal ka weydiino محمد بلال حسن ظاهر با عسومتين sida uu sheegay nin kamida ururkaaga idinka miya xasan daahir casumay oo ku casumay in uu ka soo noqdo kooxda shabaab oo uu yimaado dalka Soomaaliya sida shakadu maaha ururkayga qaar kamida ayaa waxay sameeyeen xiriir la sameeyeen si uu wada xiriireen qayb ahaan qayb naga mida ayay wada xiriireen qaybtaas hadda ka shaqaysay oo ururka kamida sidii uu soo noqon lahaa oo wada hadal looga qayb gal lahaa oo dalka bis loogu soo celin lahaa waligeed lagu jilmaayo dagaal iyo tabshadii waxa laakiin urku qayb weyn uu ka qaatay jeclahay inaan su'aal kale ku weydiiyo oo ah haddii aad ku guulaysateen inaa xasan daahir keentaan ma jiraan kuwa kale oo aad la xiriirteen sida Roogo Masuur ama rag kale ama Axmed Godane xataa ma jiraan inaad la xiriirteen ama maxaa diidan haddii inaad la xiriir inaad hadaa xasan ku guulaysateen inaad asagana aad isku daydaan isku ma aanan diin laakiin adaga xaajiga un baa la isku dayay marba waxa way furuhu halkaas ka bilaabmay haddii isaga lagu guulaysto dabcan gidid marba qof baa loo geli karaya laakiin mar lama wada gelin Abu Masuur iyo isaguna waa wada socdeen marba bay wada yimaadeen waxaad moodaan xiriir ka dhaxeeyay ama ay wada socdeen marka waa hawl socota waana golaha ayaana ka shaqeeyay sidii loo wada hadli lahaa wada hadallo badan oo kalena way wadeen xasan daahir maanta waa la xiray magaalada Muqdisho lagu xiraa ka waran balse waragtan dareenahan maxay idinka bedeshay haddii mar aad keenteen in aad xasan daahir aad casumteen asagina dawladdu ay xirtay oo waliba nabad sugidii iyo ay qabteen maxay idinka bedeshay waa isleedahay muxuu iska bedeli karaa hankiina inaad kooxda kale keentaan waxa weeye aad baan soo ka xunnahay dee hawlaan galay in naloo gacan dhaafo waxay ahayd in
meel dhexe la isugu yimaado oo nin odayu ahaayo in nabadda isaga lagu doono baa ahayd xadhigga iyo waxaas waxba ma keenaan dalku wuxuu u baahan yahay in dib heshiisiin dhab ah in isaga laga qaato baa ahayd shidaal si dadka kale loo keeno oo nabadgelyo dhaba la wada doono xadhigguna dee rag baa loo sameeyey in la xidho laakiin ma ahayn in laysu dhaafo waxay ahayd in si caadiya loo wada hadlo oo nabadgelyo oo nin odaya waa nin nabad lagu dooni karaa waa nin keeni kara nabadgelyo aad u mahadsan tahay waxaad ka daawanaysaan shabakadda SO5.tv Yeah.